daawadayaal halka aad nagala socotaan waa Nawaax TV. maanta barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay dhaqanka. halkan waxaa marti inoogu ah wiil magaciisa la yiraahdo Cabdi Xasan oo ku nool dalka Mareykanka, khaasatan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, Minnesota. Cabdi Xasan ku soo dhawaad barnaamijka. mahadsantahay Cabdi Yare, waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo Nawaax TV. maadaama ay barnaamijku ku saabsan yahay dhaqanka, Cabdi Xasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wax ma inoogu sheegi kartaa dhaqanka Soomaaliyeed? بسم الله الرحمن الرحيم. ومحسنت عبد يرى وحربا إن فرصة المركب ورئيس وفائدة استو إن محط بلارن تشيريو تيفي عالمي نواحي تيفي إن فرصة قاعدة عيسيين وعن قالوا دوما هذا إن شخص في عنا وهي الكوميونيتي الصومالية وهو أمريكا كرهانا خير من الصوت. هدان ست توصل وجوابه سؤال هذا وهاي حكي دقن كصومالية دقن كصومالية وحن أوران كنا ولا وحوي وهبط وكلا واحد بلارن waxaan ku soo koobi karnaa ma hal program balse hadaan siro kooban uga hadlo ama aan xoog u saaro dhaqanka Soomaalida dhaqanka Soomaalida waxa uu dib ugu noqonayaa islaamka, dib uu raad ku leeyahay, dib ugu noqonayaa. marka dhaqanka islaamkuna wuxuu badanaa raacaa islaamka. waxa kamid ah in la ixtiraamo, waxa kamid ah in la isjeclaado, waxa kamid ah in dadka waayeelka la tixgeliyo, waxa kamid ah in dadka jilicsan dumarkii carruurta ah yani aad loogu naxariisto. saasaan oran kara kale intaasaan ka xusuusanahay hadda. waan mahadsantahay. mahadsanid Cabdi Xasan. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaalidu xagee ka soo jeedaa? aad iyo aad baa Cabdi u mahadsantahay walaalle. waa kaaga mahadcelinayaa su-aasha qiimaha leh. waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. dad badan oo aqoon-yahanaana ay ku muraadsan yihiin, balse anigu waxaan oran karaa dhaq Soomaalidu waxay ka soo jeedaa dadka la yiraahdo Cushitic race bay ka soo jeedaa, waliba dadka South oo Cushitic South oo race-kaas ka soo jeedaa. waxayna Soomaalida isku isir ama identity yihiin ama ay isku group yihiin dadka la yiraahdo saaxada anfarta Fendiila. dadkaas isku race yihiin. actually waxaan jecelahay inaan gabay uu tiriyay ninka loo oran jiray Allahumma naxariiste yamyam halkan ka sheego, isagoo sheegay Soomaalidu halkii ka soo jeedo iyo meesha ay ku ka timi, maadaama ay Soomaalidu qolob meel wax sheegto ma garatay oo wax cadeyna oo dhab aan haynin. Allahumma naxariiste yamyam oo ka hadlayay midda aad u hor intuu dhiban ka hor gabaygiisa waxa kamid ahaa Afrikada madow iyo oramada aan wada naal ma intaan ilaawaan ibn Hashim galaya abtirsiyo qorano inta aan jiray ku simaniyo isirkeyga keeba taariikhda ka akhriyay ma mise mala awaal baan ku awoo sheegnaa. macnaha waxaad ka dhansanaysaa gabay uu sii dheeraa yani inaan dad Afrikaan nahay oo kusheet ka soo rajeedno halka Ethiopia ka soo jeedno baad ka tirsan kartaa oo aad yani ka dhansan kartaa. waad mahadsantahay. waxaad inoo sheegtay inuu yahay dhaqanka Soomaalida dhaqan aad u wanaagsan. sida ognahay dhaqan walba wuxuu leeyahay qayb fiican iyo qayb xun. maxaad dhihi kartaa waa qayb fiican iyo qayb xun dhaqanka Soomaaliyeed? anigu waxaan oran karaa walaal anaa isku dayay inaan soo koobo su-aashaada. dhaqanka Soomaalida waxaan oran karaa waa positive, aad buu wada fiican yahay. haddii si daacad loo hadlo waa run in waxyaalo khaladaad jiraan. waxaa kamid ah dadka Soomaalida dhaqanka hadda isbedelka dhacay, istilkan faraha badan, heerkan waxaan waa wax dhaqan Soomaaliyeed maaha. kaas baa sheegi karaa anigu waxyaalaha xun, laakiin waxaan oran karaa 99 ama waa fiican dhaqanka Soomaalidu. waa aad iyo aad buuna ugu fiican dhaqanada adduunka jira oo dhaqanka ugu fiican buu leeyahay. markaan u gudbo dhinaca qurbaha, waa maxay isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca dadka Soomaalida markay qurbaha tagaan? waa su'aal aad iyo aad fiican weey. that's great question. waxa weeye waxaa kamid ah dadkii oo luqadooda hooyo qaniga ahayd ka dhunto luqad kala qaata af Soomaaliga oo yani uu dhumay marka qaarkood dadkan uu ka dhumay. waxyaalahaas baa loo oran karaa waxyaalaha ugu waaweyn ee dhacay oo aan aragnay oo jira oo anigu aan arkay oo ku arkay maamo hooyo Soomaaliyeed oo ilmaheedii yaraayo dhawaan yimi haddana dhowr bilood ama sano kadib ay isfahmi karayaan ama wax laga English ku hadlayo maamadina Soomaali ku hadlayso. marka waa dareemi karaysaa adoos arrintaas ka mid ah. sidaad sheegtay dhaqanka Soomaalida waa dhaqan wanaagsan.
laakiin maxaa sababaya dadka qolbaha markay imaadaan in ay si fudud u qaataan dhaqamada kale ay wajahaan waa su'aal fiican cabdi anigoo raba inaan su'aashan ku soo xidho jawaabteeda waxaa dhici karta maadaama walaal environmentiga uu yahay kii wadankeeni ka duwan yahay maadaama ummado kale qoomiyado kale luqado kale ku hadlaya aan u nimi taas ayaa waxay keeni kartaa inuu dhaqankaaga ama luqadaada ka tagto dhaqanka Soomaaliga ama luqada laga tago taas ayaa keeni karta maadaama waxa laga meel ka shaqaysid dad kale wax la dhiganaysid maanta dhan waxa laga yaabaa luqadeena waa Soomaaliga ama ka hadlin taas ayaa keeni karta waxyaalaha inaad la iskarisid هذه أنا بنربينا ومهذا علينا واحد في مرة بعد فرصة قالي عيسيان وأنا هسيتني شغلة في عنا ومدة ومحدثان وأنا ما سنت عبدير وأحسن صارة برنامج. ما سنت ما أنت هالكاس أيو برنامج كنا كوي جاي إلا أيو أنت دنبه هالكا أيو بتقولي.